wicitaan argagax ah oo ka dhacay dooxada Spiti Hamishal Paradise, India. Dhacdadan waxay iigu dhacday aniga iyo 4 saaxiibaday ah. Intii aynu ku jirnay safar mooto oo aan ku maraynay Spiti sanadkii 2022. Waa dhacdo ilaa maanta aanan iloobin in aan sharaxaad macquul ah u helno. Waxaan ahayn 5 nin oo saarnaa 3 mooto. Waxaynu ka soo soconay Hanley kuna sii jeednay Kaza. Waxay ahayd qiyaastii 4 galabnimo. Waxaan istaagnay meel dooxa ah si aan u nasano. Dhinac waxaa naga xigay buuro waaweyn, dhinac kalena webi. Waxaan mootooyinka ugu tagnay wadada, kadib waxaan xoogaa u lugaynay dhinaca webiga. Waxaa muhiim ah in la ogaado hal shay: dhammaanteen taleefanadeenu way dansanayeen. Ma ahayn in uu bateriga naga hooseeyo, ee gebi ahaanteeba waan bakhtiijinay. Xitaa signal ma jirin meeshaas. Waxaan fadhinay halkaasi anagoo sheekaysanayna oo sigaar cabayna. Markaas ayaan si lama filaan ah u maqalnay qof leh shubhu. Ogow, qof la yiraahdo shubhu midkeenuba kuma uuna jirin. Codka ma ahayn mid dheer, wuxuu u ekaa qof meel dhow taagan oo magacaasi ku dhawaaqaya. Dhammaantayada 5 qof waan maqalnay. Markii hore waan qoslay oo waxaan idhi malaha mid ka mid ah taleefanadayada ayaa muuqaal ama cod sii daayay. Saaxiibaday markiiba waxay i xusuusiyeen in dhammaan taleefanadayada ay dansan yihiin. Waxaanu kaftanay dhowr ilbiriqsi, kadib iska indhatirnay. 1 ama 2 daqiiqo kadib ayaa mar kale maqalnay shubhu. Markaan codku wuxuu ahaa mid ka sii cad sidii hore. Dhammaanteen waxaan bilownay in aan hareeraha eegno si aan u ogaano meesha uu ka imaanayo. Qofna ma joogin aaggaas aan anaga ka ahayn. Guryo ma jirin, gaadiid ma jirin, waxban ma jirin. Kadib waxaan maqalnay markii 3aad, laakiin markaan ma ahayn kaliya shubhu. Waxay ahayd sidatan: shubhu. Waxaan ku dhaaran karnaa in codka markaan uu ahaa mid ka dhow oo ka dheer sidii hore. Isla markiiba markii taasi dhacday, dhammaanteen waan argagaxnay. Jawigii meesha ayaa gebi ahaanba isbedelay. Qofna inaga mid ah kooxdeena mar dambe muuna kaftamayn. Waxaan fulnay mootooyinkeenii oo isla markiiba ka dhaqaaqnay meesha. Uma jeedo inaan si degan safarkeenii u sii wadanay. Waxaan si xawli ah uga baxnay meeshaas, mana aan istaagin mar kale ilaa aan aad ugu dhowaanay Kaza. Sharaxaad macquul ah: waxaa laga yaabaa in ay jirto in codku si la yaab leh ugu noqnoqdaan buuraha iyo dooxooyinka. Waxaa laga yaabaa in qof meel qarsoon joogay oo aynan arkin. Laakiin waxa yaab kale ayaa in dhammaantayada 5 qof aan maqalnay isla codkii dhowr jeerna. Ilaa maantana cidna ma sharxi karto. Ma jira qof kale oo la kulmay dhacdo la mid ah tan. Fikrad ahaan, dhacdooyinka noocaan ah mararka qaarkood waxaa sababi kara eejo ama celceliska codka ama acoustics-ka gaarka ah ee buuraha iyo dooxooyinka, taas oo cod meel fog laga soo saaray u ekaan karo inuu meel u dhow ka yimid. Laakiin runtii waa sheeko cabsi badan marka dad badan ay isku mar maqlaan cod aan la garanayn halka uu ka imaanayo. waad ku mahadsantahay daawashadaada. Haddaba haddii aad ku cusub tahay channel, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub.